waxa la idka rabaa gabdhaha dhulbaanta ama kuwa harti ama kuwa kablalax kuwii sabaayada dubi jireen sabaayadooda dubaan kuwii caafimaadka ah inay gabadh waliba galoofiskeedii iyo dhiigii diyaarsato kuwii qaaraanka gudaha guri karayay inay qaaraankooda ururiyaan in dhiig aad inoo diyaarsaan inaad mar qolya aad rifayo aniga aad igu dhagan aad aragteen baaba dhici karta oo la halgankii baad dooqaysay halgankii baad kan ka dhigtay halganka anigu saan isugu qaawiye waxaan u malaynayaa kuwa dhintay un baa mudnaantayga leh kuwa nool haday noqoto waa ka sheegan karaa limin gabadh baan ahaa ubad baan hayay reerkan ubadka u hayay reerkaygii baa istilayay abtiyaal baan ku lahaa intaa midna ay maxkamayn wax walba waxaan ka doortay dadkaaga waa laga gardaran yahay waa la dulmiyayaa tolka raac nima boqolayaala waxay oranayaan halganka ma suqaar ka daysid halganka ma ka daysid dhabar jabinta hadda waxa laga yaabaa isaga biitoona ma joogaan ani aabahay jiida markay dhulbaanta lagu arkay ayaga oran jiray isku meel ku dhimanina ku kala bax waxaan dhulbaanta maxaad u dhiman weyday ugu dhahabaan ku tan ma halgan ba dhabar jabinaysaa halgan dhabar jabinay waa loo yahay maxaad shahaadadii u raaci wada u dhiman weyday deydha oo cadhooda jashaadiba halka ninba madaxweyne ka aho waa madaxweyne Puntland waa madaxweyne Hartiyo waa madaxweyne Daaroodka Puntland degan madaxweyne u ah hawsha la ascaanood ka socota waajib uu leeyahay inuu af iyo aadinba ku difaaco wixii harti lahaa isaga haya wixii harti lahaa isaga madaxweyne qabaa'il Daarood la siman bareernimo kula dagaalamaysa dhulbaante markaasay haddana wax irsamaal leeyahay soo kaxaysteen markaasaa kuwa sheeganaya haweenahay oo la urur Soomaaliyeed leeyihiin xamar lama keeni karo dhaawacyada dhulbaante xadhig ka xiri kara ama ka xanibi kara inuu si dhumaalaysi uga shaqeeyo ama uu gacanta laabto haba yaraatay ma jirto halkaas soo istaagay aniga isaga dagaalka iyagu halganka waa ka horeeyay Siciidani haddana idin sheegay intii naas dhulbaante ma tiidin aniga Siciid Cabdilaahi dagaalka iyagu halganka dhulbaante waa ka horeeyay waana ka dambeynaya mahadilkeeda laayo sugnaatay Allah mahad iska leh isuukeen keenay madashan quruxda badan isuukeen sameeynteenan inaan isku nimaadno inagoo tirada inta leega dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka muhiimadan aan isugu nimi ama casuumadan u sameeyay ama ujeedka uu daaranaa kulankani waxay ahayd waxaanu soo marnay hawl adag waxaynu soo marnay maalmo adag oo qadhaadh waxaanu soo qabanay shaqooyin aan qof waliba ka bixi karin ma dhammaan wixii aynu ka shaqeynay bilowgii ayaynu ku guuleysanay horta in la isbogaadiyo la isku mahad celiyo la isxasuusiyo intaanu soo qabanay inta hadhay inay ka badan tahay waxa weeyaan bahdii caafimaadka waxa weeyaan hooyooyinkii dhaqaalaha iyo qaaraanka iyagu waxaan sheegay ururinay gurayay waa gabdhihii caafimaadka neerasta ahaa ee marna kuuga noqonayay marna neerasta noqonayay marna meydka aasiyay hadii ka fursan weydo sidoo kale inamadeedii qaar dhaawacmay baa jooga oo dhaawacyadii ka soo kacay intaas oo qof midaan soo aasin ama walaalkii ama wiilkiisii ama adeerkii ma fadhiyo maanta waxa geesinimo inaynaan ooyeyn oo aynu garanayno waxa ku dhinteen rageennii waajib ilaahayna gudanayeen cirdigooda iyo sharaftooda iyo jiritaankeena ummadnimo iyo inta ka hadhaasay sharaf ugu noolaato iyagoo difaacaya inay u dhinteen waad ogtihiino duulaan qaawan bal lagu soo qaaday deegaankeena cidda nagu soo dushay saaq kaliya maaha cid khayraadka ku jirta deegaamadeenna og oo rabta meel ay u soo marto iyo cid wakiil uga noqota oo ay keensato oo isaaq dibada ka riixaysa iyo isaaq iyaguna og waxaan adduunka doonayay meesha ku jira dawladaha shisheeye rabaan macdanta in iyaguna imaaraatiyo ku noqdaan oo qanin ku noqdaan xoolaheena innagana lanaga dhigo markaysan la raafay dad oo la hawaaraare oo Soomaaliyeed nagu dirayay oo reer Baydhabo la saarayay raaf baa ku xiglahayo keeno hadan dagaalku iman lahayn inaga leena raaf laha dad 30 sano inoo deganaayo magaalada guriga ku lahaayo carro ku dhalay in subax la raafo oo la saaro ayna waxba ku oran karin oo kelmad ku lahayn laba qodob Soomaaliland way uga socotay in inaga iyo Soomaaliland kala dilo oo sawirka qaldan la inaga bixiyo
inaynu dad xun nahay in inagana tijaabana ay ahayd inay tijaabinay waxaan sameyn karno oo inagana la inagu sameyn laa wixii dadka lagu sameeyay laakiin ilaahay baa wax ka dhow keenayo xaqi baa feeraha ka dilaacay waxaan u maleynayaa marxaladihii aynu marinay meeshan wax ka soo bilownay iyo maanta meeshan marayno 60% waa guuleysan 20 sano muddo ku dhow baa dhaqaalo iyo aqli iyo maskax iyo siyaasad waxa lagu bixinay kala tageena kala dilkeena kala haynteena inaan dadkeenu isku imanin burburkeena noocyad walbo deegaanadeena lagu hanan karo lagu joogi karo la inagu dhibaateyn karo maanta hadii aan Soomaaliland gudaha la sacano joogin mid horgal ah oo in cabaashiina koro kala ina uu si jooginin horta taasa waxay loogu mahadiyay anaga iyaguna aynu godoofaar isku haysano inaynu ka saarno gooja cadama oo godoofaar dhinacna dawlooyinkii waraabihii isaga haystaan iyo doofaarkii dhinacna inaga ku haysano oo la ka baxa waxaan mahad mudan oo iyagana ku amaanaya oo mahad celinaya qurba jooga dhulbahante qurba jooga harti qurba jooga kablalax qurba jooga daarood oo si hagar la'aana u galay qadiyada laascaanood naf iyo maalba ku bixiyay dadka waa mid dhaqaalaha bixinaya oo dhaqaaluhu waxa lagu soconayaa arsaasta saana ay raashinka ciidanka shidaalka iyo nin nafta huraya oo qoriga qaadanaya musabixi baa wax leeyahay qoliya aad xogogaal muuse uga aban sheekaysanayo waxa dhaheen muuse uu yaaban yahay wuxuu ka yaaban yahay baan wuxuu yiri maalintii aan dagaal qaado 1 milyan iyo dheeraad rasaas ku dhow bayga baxday buu laba laabkeed ugu soo ridaanay xagaa lacagta keenaa waa jimhadi waxaan wadaga xisaabta ka khaldan waxaad u sheegtaan dhaqaalihii daarood baa laascaanood laga dagaalamaya niman rag iyo rabbi bale baa meesha deganay ma waxaad mooday hadalkeena cabaasho kugu la caawana noo ha faatimiyo rasaasta ka dhamaan doonto horta qurba joogana oo mahad celinaya waxaan leeyahay hadaalinee dadaalkii ka sii badiya sii laban laaba dadaalkii ka balaaran baa leedin ka rabaa inaad isabaabushaan intii ka weyn baa leedin ka doonayaa waxaan la dagaalamayna waa dawladda wadata niman 3 sano jirayo deeq iyo deyn iyo dawarsi urursanayay way ciidan usayno inaad adkaysigeeda yeelataan hadduu daba dheeraado dagaalkaasi inaydaan caajisin in haddii dagaal dhici waayo aydan niyad jabin aad ogaataan in inaga iyo cadawgeenu sugno iyaguna diyaar garoobayaan annaguna aynu diyaar garoobayno taana taas baan kaga baxayaa waxaa jira dad badan oo inagu dhex jira oo aniga kaligeeba ma xitaa ismadu ay ogyihiin inay sirdoonka Soomaaliland ka mushahar qaataan dadkaas waxa la soo dhexmarsanaya waxa Soomaaliland rabto dadka Soomaaliland qofka ugu necebtahay oo ogtay qadiyadan meeshu kaga jiro baaba siiro fudud isaga caayaya waxa laga yaabaa 40 kale inay sii daba gasho iyagoo qofka muxuu ku caayay kuwa jira magaalada u dhexmaro oo marka dagaal socdo koonaya ciidanka xagga wala soo kacay maalinta reer Soomaaliya ugu dhinaca galbeedka ka yimi gooladii laascaanood anoo maraya mid ugu yiri xagee ku socotaa magaalada xaggan waa la haystaa ay yiri saan xagee la haystaa suuri talada shahaado ku taangoodi taagan yahay taangigee taagan kii Soomaaliland waan dhaqaaq taangi taagan talada shahaadada iyo Soomaaliland soo dhawaatay midna ma jiro dad noocaas horta jira kuwaana in gaar loo lahaado qof waliba wixii uu yiraahdo aan la iska qaadanin waxa la iska rabaa gabdhaha dhulbaanta ama kuwa harti ama kuwa kablalax kuwii sawaayid dubi jireen sawaayidooda dubaan kuwii caafimaadka ah inay gabadh waliba galofiskeedii iyo dhiigii diyaasto kuwii qaaraanka gudaha guri karayay inay qaaraankooda ururiyaan in dhiigga aad inoo diyaarisaan inaad mar walba istaanbay haataan oo sida xalay ay saqdi dhixiyagoo weerar u soo galeen xiriyaheena ay noo soo gali karaan inaad ogaataan hadal badan hal ma buuxshee hawl kama daalooyin wali waa hoggeed baa idin leeyahay aniga gaar ahaan